السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق الدكتور أحمد يوسف محمد كتخصصي عذرada ku dhaca neef mareenka iyo sanbabada. Waxaan kaloo ku takhasusay samaynta bronchoscopy-ga. Bronchoscopy-ga waa qalab loogu talagalay in lagu ogaado cudurrada ku dhaca neef mareenka iyo sanbabka. Sidoo kale waxaa loogu talagalay waxyaabaha ku dhaca sanbabka gudihiisa sida foreign bodies oo kaleeto in lagu soo saaro ama xabka aadka u faraha badan ee markaas sanbabka gudihiisa ku sameysmo. Waxaa ugu muhiimsan laba qaybood. Labadaas qaybood waa qayb diagnose ah, qaybtaas diagnoska ah iyo qaybta therapeutic ah. qaybta diagnoska ah markii aan fiirino waxa ugu horeeya number 1 in qofkii loo sameeyo bronchial biopsy ama in cad laga soo qaado. Badanaa waxaa loo sameeyaa bukaanada looga shakiyo kansarka inay qabaan iyo bukaanada la garan waayo cudurrada neef mareenkooda ku dhaca markaas iyo waxyaabaha sababay. Si loo ogaado marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo biopsy. Biopsy-gaas marka la sameeyo kadibna waxaa loo diraa laabkaas ayaa soo saari doona wixii natiijo ah oo final ah. Marka bronchoscopy-ga wuxuu ku fududeynayaa si fudud in biopsy-ga lagu sameeyo. Qaybta labaad waa in la sameeyo bronchial brush iyo sidoo kale in la sameeyo bronchial lavage. Badanaa waxaa loo sameeyaa waxaa kamid ah caabuqyada ku dhaca sanbabada iyo neef mareenka. Badanaa marka waxyaabaha ay ku sahlayaan waxaa kamid ah in dheecaanka caabuqa si fudud markaas looga soo qaado sanbabka gudihiisa, hadhowna la baaro lana ogaado exactly qofka waxa haayo oo markeenahay in uu markaas cudurrada badanaa keenona si fudud ayaa lagu soo saari karaa markuu qofka bronchoscopy-ga loo isticmaalo. qaybta therapeutic-ga markii aan fiirinana wuxuu ka saacidayaa bronchoscopy-ga number 1 in qofka laga soo saaro waxyaabaha uu markaas ee dhuuntiisa uu laqay ama waxyaabaha uu marka qofka uu hadlayo kaleeto ku sixaday ama ay dhuuntiisa aaday. waxa ugu horeeya noqon kartaa bir oo kaleeto qofka in uu laqo kaleeto afka ugu jirtay, istakiin oo kale inuu laqo oo waxyaabaha ugu badan soo laalaabanayo qofka asagoo afka ugu jiro gudihiisa uu ku dhex hadlo kale. waxa kaleeto qofka ku dhici karo oo ayadana foreign body inuu cunooyinka qaarkood oo kale inta ku sixdaan ee markaas dhuuntii aado dhinaca neef mareenka meesha la rabay inay aado qaybta dheefshiidka. marka waxaan aad uga mahadinayaa marka in qof walbeeto oo Soomaaliya maanta uu heli karo bronchoscopy-ga oo qalab aan hore loo heli jirin. waxaan aad ugu mahadcelinayaa agaasinka iyo maamulka KAH Specialist Hospital oo noo suurageliyay in la helo qalabkan waxay noo keeneen waqti aad loogu baahan yahay runtii dadkana ee aad maxay uga cabanayaan waqtiyo dheer cudurro soo jiray oo ku dhaca neef mareenka. sidaas darteed waxaan rabnaa in laga faa'iideysto. waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed, dhakhaatiirta iyo kulli health workerska ama dadka ka shaqeeya caafimaadka guud ahaan inay ka faa'iidi doonaan ugana faa'iideen doonaan bulshooyinka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Muqdisho. insha Allah khair ayaan isku ognahay. waxaan rajeynayaa in laga wada faa'iideysto hadduu Ilaahay yiraahdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.